magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool amnigeeda ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana magaaladaasi la filayaa inuu tago madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa guul weyn oo u soo hoyotay dadka deegaanka reer waqooyi bari SC Khaatumo sababtoo ah maamulka halkaasi ka jira wuxuu cadawtinimo xoogan oo kala dhaxeeya Puntland iyo Somaliland xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye waxaa ka qayb galaya xubno kamid ah maamul goboleedyada xubno ka socda dawlad deegaanka Soomaalida xubno ka socda mucaaradka sidan xogta ku hayo xubno ka socda siyaasiyiin Soomaaliyeed xubno ka socda odayaal dhaqameed iskaga kala imaanaya geeyiga Soomaaliya iyo sidoo kale dhalinyaro Soomaaliyeed oo haween iyo caruur ay ku jiraan si ay xafladda uga qayb galaan xafladda cid walba ayaa casuumaad loo diray si ay xafladdu u noqoto mid indhaha caalamka iyo tan Soomaalidaba ay ku soo jeedaan saacadaha soo aadan waxaa sidoo kale la filayaa in Cabdiqaadir Firdhiye uu sii daayo xubnaha golaha wasiirada magacaaban si uu bulshada Soomaaliyeed ugu soo bandhigo haddaba tani ma la dhihi karaa waa guul istiraatiijiyadeed oo uu gaaray maamulka waqooyi bari jawaabta oo fudud waa haa maamulkan ka jira magaalada Laascaano ee ka arrimiya Sool Sanaag iyo Cayn waxa uu muddo la daaladhacay in dadka deegaanku ay dhistaan maamul iyaga u gaara laakiin waxa hortaagnaa caqabado waaweyn oo ay adag tahay inay ka gudbaan tusaale maamulka Cabdiqaadir Firdhiye waxa uu tiro dhowr jeer dagaalo la galay Somaliland kuwaas oo maxaabiis fara badan xilligan lagaga hayo xabsiyada magaalada Laascaanood haddaba waxa jirta sidoo kale aragtiyo kala duwan oo ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu tago magaalada Laascaanood wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee taga magaaladaasi marka laga yimaado dilkii Jannatul Firdaws Allah ka waraabiye Cabdirashiid Cali Sharmaake loogu geystay magaalada Laascaanood ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana magaalada lagu daadiyay ciidamo fara badan oo kamid ah kuwa nabad sugidda iyo kuwa hordhac u ah madaxda dawladda Soomaaliya wufuudda ka qayb galaysa xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye waxaa la sheegay inay yihiin kuwa saameyn oo mug iyo miisaan leh in madaxweynihii dalka uu tago magaalada Laascaanood ra'iisul wasaarihiina uu ka daba tago xubnihii golaha wasiiraduna ay raacaan ayaa waxay tahay arrin cajiib ah oo aan la iska indhatiri karin khubarada arrimahan la socota ayaa aaminsan in tani ay tahay dharbaaxo weyn oo ku dhacday Cabdiqaadir Firdhiye waa dharbaaxo weyn oo ku dhacday Siciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiraxmaan Cirro sababtoo ah labadooduba waxay diidanayeen jiritaanka maamulkan waxay sidaas si lamid ah sidoo kale diidanayeen hanaanka hadda wax lagu wado bilow ilaa dhammaad dadka arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin tani waa fariin aan inaba caadi ahayn oo ku saabsan xaaladaha hadda taagan sababtoo ah tan waa mid aan la dheelsan karin oo ku saabsan xaaladaha magaalada Laascaanood garadada maamulka waqooyi bari sidoo kale waxay yeeshaan xalay kulamo gaargaara kulamada waxaan ogaanay in inta badan diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo waaweyn arrimaha amniga ayaa diiradda la saaray iyadoo oo garaadadu qodobkan ay ka wada siman yihiin marka laga hadlayo ka hadalkiisa laakiin arrimo kale oo waaweyn ayaa jira oo ku saabsan xaaladaha hadda taagan ila wareedyo aan la hadalna waxay tilmaameen in Cabdiqaadir Firdhiye iyo garaadadu ay isku raaceen in amnigu uu noqdo waxa koowaad ee laga shaqeeyo sababtoo ah haddaysan magaaladu amni oolin cid imaan karta male sidaas si lamid ah waxaa la filayaa in wufuudo kala duwan ay magaalada tagaan kuwaasoo dhammaan dabcan hordhac u noqon doona wufuudo caalami ah oo tagi doona gudaha magaalada Laascaanood maalmaha soo aadan marka dib u milacsato xaaladihii ugu dambeeyay ee halkaasi ka jiray xaajadu waxay ku tusinaysaa in ay tahay xaajadu meel aad u sareysana ay marayso sababtoo ah waxaa jira aragtiyo kala duwan oo banaanka yimid oo la xiriira sida ay xaaladdu u gaartay meel aad u sareysa isku soo wada duubo Cabdiqaadir Firdhiye xafladiisa caleemasaarku waa ay dhacaysaa Dani iyo sidoo kale Cirrana wadnaha ay farta ku hayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu tagi doonaa gudaha magaalada Laascaanood dad badanna waxay eegayaan xafladdu siday noqon doonto iyo hadallada laga jeediyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaalada ayuu ku sii nagaan doonaa 2 ilaa 3 maalmood wuxuuna kulan duceedyo la qaadan doonaa garaadada maamulka waqooyi bari isagoo markaas kala hadli doona arrimo waaweyn oo taabanaya masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin tan waa fariin si weyn loo sugayay oo ku saabsan xaaladaha hadda taagan wixii ku soo kordhana daawadayaal waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkeena dambe ha yeeshee sidee u aragtaa tigista madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Laascaanood misas dhigi kartaa
waxay wax ka bedeli kartaa xaaladii halkaasi ka taagnaa aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb